inta uu socday dood cilmiyeedka ay soo agaasintay hay'adda adeegga lacagaha yaryar ee Soomaalida isla markaana ay ka soo qayb galeen culimo diinka deegaanka ayaa waxaa la isla laafaguray in laga fogaado dhibaatooyinka ay leedahay adeegyada dulsaar kale sidoo kale waxaa la isla qaatay in bulshada deegaanka la gaarsiiyo adeegyo maalgelineed oo ku salaysan shariicada diinta islaamka gunaanadkii dood cilmiyeedkani waxaa ka soo qayb galay wasiirka xafiiska madaxweynaha deegaanka gudoomiyaha golaha sare arrimaha islaamka iyo sidoo kale gudoomiyaha maxkamadda guud ee shariicada islaamka haddaba dood cilmiyeedkan inta uu socday waxyaabihii la isla qaatay waxaa halkaasi ka soo jeediyey maarayaha guud ee hay'adda adeegga lacagaha yaryar ee Soomaalida mudane Khadar Axmed waxay culimadu isla qaateen kow in nidaamkii xafiiska lagu aas-aasay guddiga shariicadu ay u dejiyeen uu ahaa nidaam sax ah oo wax khalad lahayn laba waxaa la isla sheegay sidoo kale in fulinta nidaamkii culimadu ay dejisay ay ka jireen khaladaadyadaasna la isla saxo sidii loo sixi lahaana qorshayaal cad laga bixiyey saddex waxaa sidoo kale culimadu ay isla qaateen in la sameeyo hay-ad shareecada kala talisa xafiiska oo dibadda ah iyo mid gudaha ah oo xafiiska dhexdiisii fulintiisa kala shaqeysa maadaama markaa hore tii hore ay jirtay oo hay-ad dibadda ay jirto in gudihiina lagu daro oo dhammaan xafiisku siduu u shaqaynayay ay ugala qayb qaataan culimadu ilaa fulinta ugu dambaysa waxaa kaloo culimadu ay isla garteen in khaladka ugu weyn uu ka jiro bulshadeenna oo aan wixii xaaraan ku ahaa ee ribadii ahaa iyo siday kusoo gelayso wacyigelin badan aan ka haysan sidaa daraaddeed ay culimadu iyo dhammaan qof kasta oo door ku lehba uu ka qayb qaato sidii looga wacyigelin lahaa siyaalaha ribadu ay ku imanayso loogana taxadari lahaa qof walba inuu ribadaa ku dhaco sidoo kale waxaa la isla qaatay in looga dambeeyo waxyaalaha la xidhiidha arrimaha nidaamka bangiyada islaamiga ah guddiyada loo xilsaaray oo aynan qof walba ama sheekh walba oo meelo kala duwan joogoona ka mid ahayn guddiyadaas uunan macnihii ka hadlin uunan ka fadiyoonin iyadana taasna waa la isla qaatay waxaa la isla qaatay oo kale in bangigu uu ku shaqeeyo nidaamka dhammaan madhabaha oo dhan uu uga raadinayo xal shareecada islaamka waafaqsan oo maaliyadeed iyadoo laakiin muhiimadda koowaad la siinayo nidaamka madhabka shaaficiyada sidoo kale waxay culimadu soo jeediyeen in lagu tababaro shaqaalaha hay-adda ama lagaba dhigo dad diinta aad u garanaya si fulinta markaa alla ka cabsi iyagoo ku daraya markay fulinayaan shaqadii ay u wanaagsanaato dankudan waxaa halkaasi hadalla ka soo jeediyey wasiirka xafiiska madaxweynaha deegaanka mudane xasan maxamed xuseen iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha sare ee arrimaha islaamka sheekh axmed aabi inay culimada deegaanku inta isu yimaadaan ay ka doodaan lafaguraan wixii iyagoo ay u arkaan inuu shareecada islaamka waafaqsan yahay isku raacaan kadibna hay-addii adeega bixinaysay ee ummadda siinaysay la yidhaahdo ha ku dhaqanto waxaan u malaynayaa inay horey in badan u jirin hadday jirtana ay koobnayd baa suuragala marka waxaan leenahay hadda wax kasta oo nolosha bini aadanka ama bulshadeenna khuseeya culimadu inay dowr muhiima ku yeelato oo ay ka doodaan hagaan bulshada una jiheeyaan nidaam ama jiha fiican ay u jiheeyaan waa arrin laga rabo oo door ay leeyihiin oo doorka riyaadiga inay qaataan ama hogaaminta inay qaataan waa mid laga rabo waxaan markaa rajaynaynaa inay sidii hadda ay ahayd ee ay ku socotay hadda iyo si ka wanaagsan inay kusii socon doonto waa qaabka hadda aan ugu talagalnay ay ku socon doonto laakiin hadda qorshe ka duwanba ayaa jira oo hadda aanu go-aaminay boor ahaan aan isla qaadanay aan xariiqnay ama aanu saxeexnay oo go-aankeedii qaadanay baa jira kaasoo ah microfinansigan in loo bedelo bangi islaamiya marka bangiyadan wadanka ka shaqeeya ee privateka ah mid ka mid a ayay noqonaysaa waxayna noqon doontaa mid siisa adeegyo kala duwan oo fara badan deegaanka Soomaalida ama shacabkeena siisa adeegyadaas oo inaan helaynin hadda ka hor maxaa yeelay bangiyada meesha wadanka yaala waa bangiyo conventional ama banki riba weeyaan bulshadeenuna inay riba qaadato oo deymo waaweyn oo riba inay qaadato diyaar uma ah Ethiopia waxa hadda lagu dhisay waa bankiyada financial institutions ka dhisay Ethiopia
alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh. runtii waxaan u mahad celinayaa xafiiska oo soo qaban qaabiyey arrintan iyada ah. waxaan iyagana u mahad celinayaa culimada khabiiriinta ah ee shareecada islaamka ku takhasustay, iyaguna dhammaan gobolada ka wada kala socda deegaanka oo dhan, iyaguna meeshan isugu yimid 2 maalmoodna niqaash u fadhiyey si loo waafajiyo xafiiskan kada shareecada islaamka, si loo waafajiyo. iyaguna ay dooda adag ka geystay, iyagana aad baan ugu mahad celinayaa. dhammaan dadkii arrintan ka qayb qaatay waxaan leenahay jazaakum allahu khayran, aad bay u mahadsan yihiin. hadduu xafiiska yahay, hadday xagga dowladda tahay, hadday culimada tahay, hadday xafiisyada diiniga ay yihiin, dhammaan waxaan leenahay khayr allaha siiyo cid kasta oo arrintan ka qayb qaadatay. runtii horeyna waa looga soo qayb qaatay oo culimadu door weyn bay xafiiskan ku lahaayeen. sidaa haddaba lasoo sheegay baa laga yaabaa in khalal dhexdii ka baxay. alxamdulilah haddii khalalkii dhexda ka baxay ku yimid baan ujeedaa, haddii maanta la isla saxay oo xafiiskii si cusub uu ambaqaadayana waa alxamdulilah, ilaahay baan u mahad celinaynaa. sida aynu wada ogsoonnahay hay-adda adeega lacagaha yaryar ee Soomaalida waxay 10kii sano ee ugu dambeysay ka howlgelisay deegaanka Soomaalida guud ahaan gobolada maamul magaalooyinka iyo degmooyinka deegaanka, kuwaas oo qaybo kamid ah ay u cadimnaayeen bangi la'aan ka jirtay. isla markaana waxay hay-adda adeega lacagaha yaryar u fududeysay sidii ay u heli lahaayeen adeegyada kaydka lacagaha, dirista lacagaha iyo sidoo kale helidda lacagaha, waxaana dhowaan la filayaa inay isku bedeli doonto bangi ay leedahay bulshada deegaanka.